Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabta waa idin salaamay shalay waxaan booqday beertan oo ku taalo baadiyaha magaalada Nairobi run ahaantii meeshan waa meel markay ugu yartahay Nairobi u jirto 120 iyo dhowr kiiloomitir ilaa 130 kiiloomitir meelahaasay u jirtaa waxaan baxay 3 saac oo subaxnimo camal baan ka baxay magaalada Nairobi meeshaana waxaan tagay adiga qiyaastii 6 saac iyo bar meelahaasaan tagay inkastoo meelaha qaar ay jaam ahaayeen oo gaariga uu jaam naga galay haddana maaragtay xilliyada duhurka u dhawaaban tagay run ahaantii meeshan aan hadda maaragtay u socdo waxay ka tirsan tahay countiga Kajiado ka tirsan tahay waxayna hoos tagtaa maaragtay tuulo la yiraahdo Isinia marka waa meel ay hadda Soomaalida ku soo badanayaan oo maaragtay ay aad iyo aad beero iyo guriyaba maaragtay uga samaysteen hadda jidkan ku sii jira meesha aan u socdo dad baa waxay ka dhisteen guriyo aad u qurux badan oo geedo ku tallaashay maaragtay waana meel amnigeeda maaragtay 100% uu yahay oo aan tuug iyo qajajac iyo xataa crime kuma badna wax maaragtay tuuga iyo wax maaragtaysid inta badan deegaankan waxaa dega maaragtay dadka Masayda ah oo Kenya ku nool dadkaas oo inta badan dad xoolo dhaqato ah oo maaragtay aan intooda badan maaragtay magaalo iyo ciyaalo suuqnimo iyo waxa aan shaqo ku lahayn hadda meeshan aan fadhiyo waa geed hoostii waana maaragtay masaajid aan duhurka ku tukaday meeshan hadda waa Isinia waa masaajidkan hadda duhurka ku tukaday beertina maaragtay waa tana anoo hadda dhex joogo beertan yar aan saaxiibanahay iskale ninka odagaha iskale maaragtay Ilaahay ha u barakeeyo dad badan oo Soomaali ah maaragtay meeshan beero ka samaystay run ahaantii waana horumar la taaban karo intaasoo ekar inaad maaragtay abuurato oo aad wax soo saar samayso waa wax maaragtay lagu farxo xilliga hadda la joogana maaragtay beeraha waxay laf dhabarba u yihiinbo maaragtay dhaqaale sameynta yacni inuu qofku dhaqaale sameeyo oo maaragtay uu dhaqaale sameeyo qayb weyn bay maaragtay ka tahay beerashada yacni meeshan hadda wali lama falin waa meel maaragtay ii sheeg cagaf in la geliyo la rabo marka waa tana beertan waxaa ku abuuran basal waxaa ku abuuran hadii Ilaahay ku maayo yellow beans wax la dhaho oo digir ah waxaa ku abuuran meelaha qaar bocor baa ku abuuran meelaha qaar waxaa ku abuuran maaragtay digir kale oo French beans la dhaho yacni dhulkan wuxuu diidaya malahan kaliya wuxuu u baahan yahay maaragtay in aad maaragtay adiga go'aan qaadato oo yacni aad isku daydo inaad wax soo saarto marka waa tana beertii waa drip irrigation waaye waa kana haddana waa aniga oo maaragtay soo laabtay magaalada Nairobi na ku wajahan marka wadadan hadda waa wadada maaragtay waxaan ku soconaa maaragtay Kitengela inaan ku socono jecel aniga maaragtay dhulka aad uma kala aqaano oo maaragtay nin safar badan yahay laakiin adu hadda we are back to Nairobi macnaha Nairobi baa u soconaa hadda saacadan marka hadda Nairobi baa ku wajahanahay waana adiga maaragtay casar gaab wey waa waqtigii maaragtay maqribkii baa dhowgo marka aad baa idin salaamaya asxaabta.